xafladana abaalmarinta iyo casharafta isugu jirta oo loo qabtay madaxda gobolada iyo degmooyinka oo ka dhacday dhismaha madaxtooyada kali ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar afayeenka baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Saaq madaxweynaha deegaanka Cafarta madaxweyne ku xigeenada golaha wasiirada madax ka socotay dawladda federaalka gudoomiyaha gobolada gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada deegaanka madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabada lagu abaalmarinayo gudagmooyinka sida ugu haboon u fuliyay mashaariicaha biyo xidhnada ayaa waxa uu ka sheegay in abaalmarintan ay tahay mid dhiirigelin u ah madaxda ka go'naanshaha la timid kuwa kan la u noqonayso ku dayasho iyo ka shidaal qaadasho madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in uu riyaaqay in la abaalmariyo degmooyinka sidii la rabay u fuliyay qorshihii horaantii sanadkan 2008 la kala qaatay ee muhiimadda gaarka lagu siinayay biyo xidhnada waxa farxad heer saraan oo ah in caawinan halkan ku abaalmarino qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii loogu talagalay u fuliyay qorshihii 2008 ee aan kala qaadanay bilowgii sanadka kaas oo xoog saarayay dhanka biyaha gaar ahaan biyo xidhnada waqtigan xaadirka aan ku gudu jirno madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa sheegay in abaalmarintani ay daba socoto qiimeyntii 9 bilood ee lagu sameeyay waxa qabadkii qorshaha 9 bilood lagu ogaaday degmooyinka abaalmarintan u qalma kuwa taageerada gaarka u baahan iyo waliba kuwa qiimeynta mudan iyadoo loo go'aamiyay abaalmarino kala duwan lagu doonsiiyay 3 degmo oo darajada koowaad iyo 3 degmo oo darajada labaad kadib qiimeyntii 9 bilood ee la sameeyay deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa lagu ogaaday biyo xidhnada ugu heerka sareeya ee la sameeyay iyo kuwa mudan abaalmarinta kuwa taakulaynta mudan iyo kuwa waxa weeyaan qiimeynta mudanba intaba markii la ogaaday waxa la isla qaatay in 6 degmo heer deegaan iyo gobolada degmooyinka ugu horeeya in la abaalmariyo caawana waxaan dhigi karaa si fiican bay u dhacday tana waxay tusaale u tahay cid kasta oo shaqaysata xukuumaddu inay markasta la gaar taagan tahay inay u qorto shaqada ay qabtaan isla markaana ay ka abaalmariso madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa Xuseen abaalmarintan ay tahay fulinta ballan ay qaado xukuumaddu bilowgii qorshaha u ahayd in degmooyinka sideeda uga soo dhalala fulinta qorshaha la gudoonsiinayo gawaari shacabka loogu adeego sidii ballantu noo ahayd xilligan qorshaha kala qaadanay degmada 1 iyo 2 iyo 3 degmo ugu horeeya in gaari ay degmada iyo shacabka loogu shaqeeyo oo marka gudoomiyaha degmada la gudoonsiin doono xukuumaddu ay ku soo xiri doonto qiimeynta biyo xidhnada iyadoo taa laga duulayo in caaw halkan ballantii xukuumaddu qaaday iyo ballantii idinku qaadeen labadaba lagu fuliyay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa carabka ku adkeeyay qiimeyntan si soconaysa maadaama sanadku wali uusan dhamaanin ayna jiraan degmooyin la siiyay waqti ay ku soo dhameystiraan biyo xidhnadan sanadku ma dhamaanin qiimeynta ma sameyn doonaa hadii la yiraahdo kuwa hadda waqti la siiyay waqtiga inay kaga soo baxaan oo sida gudoomiyaasha kale ku daydaan baa laga marmaana wali biyo xidhnadu ma dhameystirna qaar badan baa wuxuu dhiban yihiin qaarkaas uu yeena u qaadanay shaqadii inaan ku dhamaatay barina wala istabageli qiimeynteena hadda aan sameynay kadib muxuu ku soo kordhiyay weeyaan waxa noo yeelaada gudoomiyaasha maxay ku soo kordhiyeen mid saa lagu hadhimaa waayo waxan shacab baa iskale shacabkana in loogu adeego si hufan oo la jecel iyo muwaadinimo iyo cadaan ay ku dheehan tahay ayaa loo baahan yahay si ay taa aan u xaqiijino inta harsan waa inaan dhameystirno madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa gudoomiyaasha degmooyinka Goday aw Bareeyo dhagax buur gudoonsiiyay furaha 3 gaari oo qabaalaha oo shacabka loogu adeegayo laptopyo mobile iyo dhulo iyadoo gudoomiyaasha 3 degmo iyo 3 gobol ay ka kala tirsan yihiin lagu abaalmariyay doorka ka go'naanshaha leh ay ku lahaayeen dhameystirka biyo xidhnadan hadhaawe aw Baree iyo Hoodale madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa sidoo kale abaalmarino kala duwan waxa uu gudoonsiyay degmooyinka darajada labaad ka galay qiimeyntii 9 bilood ee koonfurta Jigjiga Hudud iyo Shilaabo fanaaniinta deegaanka ayaa halkaas waxay ku soo bandhigeen heeso lagu dhiirigelinayo waxqabadka xukuumadda iyo waliba in la sii wado halganka عشان بقولكي كل واحد سعنا